ku soo dhawow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabaneen oo noqonaysaa bulshada ugu baahida badan haddaba tartankan waxaa maalgelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaa iyaguna hadda soo gelaya xarunta tartamayaashii ka socday jaamacadda Beder waxaa hadda soo gelaya xarunta tartanka ardaydii ka socotay jaamacadda Hargeysa markaad qardistaba بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka socnaa jaamacadda Hargeysa waxaan ka qayb galinaa tartanka arrimaha bulshada ay maalgelisay Premier Bank waxaan aniga oo Nadiif Ismaaciil iyo Shibca Mustafa iyo Uwax ayaaba tartanka iga qayb galiya waxaan ka soo gudbinay wareegii koowaad waxaan u gudbinay wareegga labaad waxaan rajaynayaa insha Allah annagoo ah gruubka bulsho kaab kana socday jaamacadda Beder kuna tartamayay tartankii adeega bulshada ee uu maalgelinayay Premier Bank waxaan ka soo gudbinay wareegii koowaad oo kaga soo gudbinay guul insha Allah waxaan maanta u taaganaynaa gruubkii labaad wareegii labaad u gudubno waxaan rajaynayaa insha Allah inaan guul fiican ka keeno markan waxa isaguna xarunta soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaanu tartamayaasha siinayaa adeegyada ay bulshada u fulin doonaan bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaad ka soo gudubteen wareegii koowaad maanta waxaad galaysaan waa wareegii labaad waxaad ku tartamaysaan wuxuu yahay halkaasi ku qoran tahay laakiin waxa ka horeysiinaya maxaad filanaysaa kulli maadaama ha tartanku si guudba tartanku watay magaca adeega bulshada waxaan rajaynayaa inuu yahay mid kale adeega bulshada oo ka duwan salaakin qaabki marka hore waxaan ku tartamayna waxa kiisas imkana waxaan filaynaa in kiis aan ku tartamno kullu ka duwan yahay hadana kiisas uun baan filaynaa in ku tartamno in halkaas ku qoreen waxa aad ku tartamaysaa okay qolka saway furaysaa way akhriyaysaa waxa ku qoran bismillaah halkan horta noogu qoriya adeegan sameynayna waa tartanka adeega bulshada waxaad ku tartamaysaan in goob xashiish aad u badan yaalo oo bulshada ku badan tahay aad ka dhigtaan meel aad u nadiif ah oo indhaha soo jiidata lacagtaada haystaan waxay ku jirtaa bashqada waxaad haystaan 24 saacadood oo ka bilaabmay marka warqada laydin dhiibo bismillaahir rahmaanir rahiim halkaas ayaad runtii ku dhamaanayaa hawsheenu tartankii baad imka galaysaan waxaan dirna jeenaya insha Allah guul iyo gobonimo dhamaantiinba السلام عليكم aqbiyadu noloshii ka qaybtahayo markaa qardistaba kooxuhu waxay hadda bilaabayaan inay qorsheeyaan sidii ay u fulin lahaayeen adeegyada bulsho ee laga rabo inay bulshada gaarsiiyaan waxa weeyaan imika kiisana loo diray maadaama qashin yahay qashinka waxyaabaha aynu meel walba ka arki karno marka waxaan sameynaynaa in 8 degmo baas mise 6 degmo waxaan rabtaa inaynu soo wada marno marka meeshan u aragnay inagu inay meesha ugu qashinka badan tahay ugu riskiga badan dadku ku badan yihiin dadkan maxaafada degan aan iska qaadi karno dad yar yihiin eriyooyinkaas soo raadin doona insha Allah imkum bilaabana saas weyn isku ogaanayna in maxaa la yiraahdaa waqtigan aan ilaalino waqtigan isku imanayno qof walba ma dacaawo wardoon tago oo maxaa la yiraahdaa uu soo raadiyo saas isku insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim
horta way noo guulinay wareegii koobaad guul kaga soo wareegnaa isla maantana aynu gudbino maxay ahayd wareegii labaad insha Allah isagana ay rajeynayna inaan guul kaga wareegno ilaa finalka marka hawl qabad baa maanta la inoo diray kii kale ka duwan kana hawl badan seen marka u qaban karnaa bad malaynaysaa ورنت فرقية وقرت أدبو بلارنت والله مركز اللي ودي من نقشن هلا نظيف مية بوشة وكوب بدنتها وحاول بعنتي تعب فرق إنسان لكن ده تكبت أكتب ورقم ده أنت يا ود أنا وطبعا هنا وقت حاضر كنا أدبلو بهنا نظافة ما دام يشرتو حالات عص ما دون كرام صح كل ما مركز ردين هذا مركز هراء جماعة قبل نبقى إنه كوجد بنكي هراء حقيقة كنا إن شاء الله وحن آمن سنة هي إنه كنا كوجد بدون إن شاء الله هراء مركز سينو هي اللي كنا ماشي وحن سمعنا إن أنت نفرد سنة بنديب وتبابشين أنا قاب كأنه بلا بلا هاي مالها وجود بدنا يعني بالشدة أتكو مرto inaynu helno yani xog aad u badan inaan ka helno yani mid kalena waa muhiim Hargeysa la inoo diray meel inoo macayin Hargeysa 8 degmo ka kooban 8 degmo ba inaad xog ka hesha taasna ku sii insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah sida ugu habsamida fiican inay hawshaasi inoogu soo dhamaato si tii hore ka wanaagsan insha Allah khayr baa rajaynaa Helloy 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 Oria, helloy, 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 Oria, Irani dawain, mahalap sagahi, helloy, 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 helloy. Irani dawain mahalabsaday qabyadu noloshay ka qayb tahayo tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa markan bilaabay inay xashiishka ururiyaan ka qayb tahayo markaad qardhistaba qolbaa madhani qabyadu noloshee ka qayb tahayo markaad qardhistaba sidoo kale tartamayaashii ka socday jaamacadda Beder ayaa iyaguna sidaasi si lamid ah waxa ay bilaabeen in iyaguna ay ururiyaan xashiishka quruxda rabbiba qumaati baxshe ilayn qof ma siiyo qofka leehibadi quruxda rabbiba qumaati baxshe ilayn qof ma siiyo qofka leehibadi helloy 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 irani dawain mahalabsaday qabyadu noloshay ka qayb tahayo qabyadu noloshay ka qayb tahayo bismillahir rahmanir rahim marka hore waxaan mahad iska leeyahay subxaanahu wa ta'ala marka labaad waxaan u mahad celinayaa bankiga Soomaal kaliya hawshan wadada Premium Bank runtii hawsha waxaan soo bilownay saaga 6 subaxnimo noo bilaamatay waxaan ka fulinay laba xaafadood xaafada Qurac Dheer oo ilaa Saylata ah iyo oo saddex noqonaysa marka iyo xaafadan IDB-ga Ayaxtiri kaasna hawsha ugu badan aan ka qabanay xaafadan Ayaxtiri runtii maaha xaafad ay gawaadhida soo gaaraan marka xashiishku ku badan yahay ilaa maanta dhan hawshoodan wadnay halkaas aanan hawsha ka fulinaynay imikaana noo dhamaatay ilaahay waa mahad iska leh waxaan wadnay sidoo kale 4 foosto ayaan soo iibinay 4 foosto mid cagaaran geynina mid waxaan soo dhignay sayladii oo mid waxaan soo dhignay saylada labana waxaan naga gudoomaya Cabdimalik oo ah gudoomiye ku xigeenka xaafadda isagana mas'uul ka noqonaya halkaas ana xashiishka isaga ururinayaan waayo barnaamijkan wadnaa ma aha inuu maalin kaliya tan naga noqdo waa inuu xaafadii anfacayo wax badan oo ka bedela magacaygu waa Cabdimalik aadan warsame
waxaanahay gudoomiye ku-xigeenka xaafadda marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inagoo dhammaanteen caafimaad qabna halkan isugu keenay mar labaad waxaan u mahadcelinayaa tiimka Premier Bank oo iyagu maalgelinta hawshan lahaa marka saddexaadna waxaan si fiican ugu mahadcelinayaa ardayda social work ah ee ka socda jaamacadda Hargeysa oo xaqiiqatan iyagu si hagar la'aana xaafadda uga shaqeeyay waxyaabaha ay qabteenna waxa uu ahaa qashinkii xaafadda ayaabay si nidaamsan oo basrisan ay u habeeyeen imikana waxaanu ka gudoomi doonaa foostooyin loogu talagalay inay xaafaddu ay qashinka iskaga gurto aad baad u mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم أنا جواه كروكي بالشكاب كسر جامعة بدر كنا ترتمع ترتنكي أديك بالشدة ومال قلني بريمير بانك أنا جو كسر جدبني جروبكي كوا وريجي كواد هذا وحن جود قلني إن وريجي لبعض حول يعني حال حول قبض كلا بعض عن قبسنا حول قبض كلا بعض عن قبسنا كاس أو أها إن مال أقشن آدو جو بدن يهي محل دهاي عن كأورورنا عن مركا محل رئيس لمركا عن كدقنا مال نظيفة هذا ماشي أن شوقنا وحوية من horta waxaan soo marnay waaxooyin badan oo ka koobantay degmooyin badan oo ka koobantay magaalada Hargeysa kan aan taaganay imika aan hawsha ka wadnaa waxa weeyne waa degmada Macalin Haaruun maxaa la dhahaa xaafadiisa Naasa Hablood halkan waxa weeyne waa qaxoontiga barakaca ay degan yihiin dadka badan ilaa 500 oo qoys waxa ay noo sheegan halkan inay tahay meel ay aad ugu dhiban yihiin oo maxaa la dhahaa shirkadaha qashinka qaadana aanay imanin marka halkan sida daraadeed ay noo sheegan waxaan anaguna u aragnay inay tahay meesha ugu baahida badan leh aan isla waxbaad ka qaban kartaan markana waxa bilaabantay inay kooxuhu guddiga garsoorka barnaamijka ay u soo bandhigaan hawlihii ama adeegyadii ay soo fuliyeen waxaana hadda madasha tartanka soo gelaya tartamayaasha ka socda jaamacadda Beder markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada Mubaarak Ibrahim Aar waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada Mubaarak waxa uu gudoomiye ku xigeen hore uga ahaa jaamacadda Hargeysa imakana waa gudoomiyaha jaamacadda Beder waa kuma Ismaaciil Aadan Meecaad Ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee masterta ka dhamaystay jaamacad ku taala magaalada London Ismaaciil waxa uu muddo dheer wadamo kala duwan oo Yurub iyo waqooyiga Ameerika ka soo bixiyay tababaro la xiriira horumarinta bulshada Ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada Boorama ee loo yaqaano Boorama Job Center Ahmed Cali Xasan waa engineer Master of Science Development Studies waxa uu ka qaatay jaamacadda Hargeysa waa wasiirkii hore ee cadaaladda Somaliland waxa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka waa kuma Cabdirashiid Yuusuf Gaxnuug waxa uu master culumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taala wadanka Uganda sidoo kalena waxa uu masterta labaad ka qaatay jaamacad ku taala wadanka Suudaan waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay'adda African Relief Xamdi Maxamed Xuseen waxa ay diyaarisaa Master of International Cooperation waxa ay madax ka tahay TV-ga goobjooga ee Somaliland sidoo kalena waxay gudoomiye ku xigeen ka soo noqotay Academic of Arts and Science waxaanay gudoomiye ka ahayd ururka qorayaasha Somaliland iyada oo sidoo kalena xubin ka ahayd boorka ururka Soonyo degmada ka kooban degmooyin ka koobantay magaalada Hargeysa inta ka gadaal maqrib baan tukanay maqrib kadib markii aan tukanay waxaan u dhaqaaqnay bal meelahan isleenahay qashin baal yaali kara ay dadkii aan la hadalnin noo soo gudbiyeen xogtooda inta ka gadaal waxaan u dhaqaaqnay inaan marno badi degmooyinka magaalada Hargeysa ka koobantahay inteeda badan waxaan u qaatay waqti ku dhow 6 saacadood yani 6 saac isla habeennimadkiiba kadib xog iyo indhayn buuxda anagoo haysana ayaan laba goobood go'aan ku qaadanay inaan qaadano inaan nadiifino labadii goobood waxay noqdeen mid waxa noqotay degmada Macalin Haaruun barakacayaasha Istanbul Naasa Hablood ee xaafadda la yiraahdo iyo dooxa magaalada Hargeysa dabadeedna waxbaan habeenimidkiisa aan kula tagnay walibana waxaan doonay inaan sababaha aan ku xulanayno labada meelood sababta koobaad
ihtimaamka siinay waxay noqotay degmada Macalin Haaruun waa barakacayaal Istanbul baa la yiraahdaa dabadeetna barakacayaashaasi waxa waa qoysas ku dhawaad ilaa 500 oo qoysaskaasi kow ma laha goob qashin yani gaariga qashinku uu kaga qaadi lahaa maba lahaba gaari qashin oo soo maray magaalada Hargeysa inta ka kooban ma lahayn xaafadaasi talabaad dadka halka degan waa dad yara dad ay xoolo ka baxeen dad dhibaataysan ayay u badnaayeen inta ka gadaal sababta saddexaad ku dooranay degmada Macalin Haaruun waxay ahayd musqulamay lahayn inta ka gadaal waan ka gudubnay waxaan niman dooq Hargeysa waxyaabaan ku doornay waxa kamid ah dooq Hargeysa weyn ogna laba waxood bay isku xidhaa sidoo kale waa meel suuqi iyo adeegi ay dadku ka qaadanayaan labadaas markii aan qaaday subaxnimadkii waan soo kalahnay waxaan isku taynay maadaama hawl bulsho ahayd waxaan tagnay dawladda hoose oo iyadu ku sababay yani ama mas'uulka ah bilicda magaalada Hargeysa xafiisyada waan tagnay nasiib daro maalinta waan weynay waliba xafiiskaaga asmaa arrimaha bulshada sababta waxa lagu mashquulsanaa burburinta suuqa magaalada Hargeysa meelahan yani isku raran kala yiraahdo kadib inta kumaan yani joogsanin waxaan u dhaqaaqnay si aan bar hadana war kale okay haddana waxaan isku daynay bal inaan xog intii ka muhiimsan aan heli karno oo meel kale noo fududeyn karta waxaan tagnay gudoomiyaha waaxda Macalin Haaruun isaga ayaa noo fududeeyay dadkii xaafadaas aan u tagnay markii dambe waxayna siiyeen 20 shaqaale xaafadii kamid ah aan ku shaqaynaynay waayo inta idin hadhay waxaan rajaynaynaa inaad su'aalaha kaga jawaabi doontaan macluumaadkiina inta idinka dhiman waxaan ku bilaabi lahaa su'aasha koobaad qaybtii dhaqaalaha la idin siiyey intaad haysateen iyo saad u isticmaasheen iyo waxa idinka soo haray ama idinka saad noqdeen inaad nala wadaagtaan horta anaga dhaqaalahana la siiyey wuxuu ahaa $300 ayaana lagu maalgeliyey meelaha nadiifinayna 2 goobood bay haayeen labada goobood way kala muhiimsanay mid wuxuu labada goobood baa mid wuxuu ahaa Hargeysa midna wuxuu ahaa Istanbul buha Istanbul waxay ahayd meel aad yani u dhib badan oo maxaa la dhahaayay in badan qashinka lagu shubayay oo isla markaana aanay baabuurtu soo gaarin halka waxa nagaga baxay shaqaalaheeda waxaan qabsanay 20 shaqaale ah oo dadka deegaanka ka mid ah deganaa 20 qof iyo halkan waxaan qabsanay 8 qof waa 28 qof 28 qof lacagtoodu waxay nagu noqotay $150 baabuurta aan anagu isticmaalayna ama maxaa la maalinta dawladda hoose mashquul baheed baabuur maanan haysan baabuurta waxay nagu noqotay iyaguna $90 saddex load oo xashiish baan qaadnay waxa kale oo aan iibinay maxaa la dhahdaa baaldiyada qashinka meesha Istanbul la dhigay oo iyadana $100 nagu noqotay iyo in aanu load ciidan meel u baahnayd oo markaa arkaynay inay meeshaasi godantahay isla markaana biyo fadhiisadku ay sameyn karto oo ay ka dhalan karaan xanuunada iyadana lowr ciidan ku rogno $30 nagu noqday halka waxa naga dhamaatay lacagtii mashruuca lagu maalgeliyay waxa noo haray habeenkii ilaa maalintii aan wareegnay gaariga aan wadanay anaga jeebkayagu ahaa $73 buu naga qaatay anaga laakiin taasna noo dheeraatay halkaas ay ku dhamaatay kharashaadkiina lagu maalgeliyay waad maadsan tahay jawaabtaadaasaan su'aal kala dhex baxayaaye 20 qof oo meel iyo 8 qof oo meel marka dadkii deegaanka oo isku keenteen oo mishaar siinaysan bay haayeen maya markaan anagu la xiriirnay gudoomiyaha waaxda Macalin Haaruun wuxuu nagu xiray gudoomiyaha degmada iyaga qudhooda ayaa gudiyaal bay leeyihiin yani qaar baa u qaabilsan maxaa la dhahdaa nadiifinta laakiin waa tabaruc mana haystaan yani cid ka qaaday way iska yara gubaano meesha way yarada yani nadiifiyaan marka kuwa laftirkoodii oo aan u arkaynay yani in iyagu meesha muhiim tahay ayaana loo soo diyaariyay saas darteed mashruucina uu uga faa'iideynay meeshana way deganaayeen maxaad siiseen kuwa lacag kuwa 20 qofkii waxba siinaysa ala qof maya mashruuca qof ba gudoomiye waxa kuwa 450 bay naga qaateen markii hore intii olaana 450 laana markii aan meesha bilownayna de meeshu meel qashin badan bay ahayd shaqaale kala laftirkooda aan u baahano rag ah oo meesha ka maarmanay sida ragii ku tuurayay qashinka meesha iyo meeshu geedo badan oo waxay lahayd qabqabsanay qashinka iyo nimankii geedaha goynayay kuwii ilaalinayay inta ayaga qudhoodna meel 260 baa nagaga baxay meelna waxa nagaga baxay 70 waqtigii la idinku talagalay ma ku dhameyseen mise waa daafteen maya sidiina loogu talagalay baan ku dhameynay 24 saacadood ha okay maadaama oo hawsha qabanaysaan hawl mutadawacnimo ay tahay inta dadkan lacag siinaysaan maxaad iyaga ugu qancin weydeen inay idin kala qayb qaataan horta shaqaale maanan helin kuwii xashiishka loogu talagalay ahaa marka xaafadda Istanbul iyadu waxay hayn dad dan yara oo ay tabarruc ku shaqo lagu oran karahaynba waayo quutal darooriguba ma haystaan marka waxaan isnidhaad ooga sameeysan shaqo galin oo kale iyaga ha u noqoto iyagana waxa u noqoto maadaama ay dad dan yara yihiin waan ku oran kari weyna tabarruc ku shaqeeya way see ku xusheen marka shaqaalaha waxaan ku xulnay inay xaafadu leedahay gudoomiye nadaafadda u qaabilsan maadaama aanu gaarigu gaadhin
dad xashiishka intay aruuriyaan ka guba xaafadda isla dadkii umaanu kala soo baxnay 20 qof ee shaqaalaha ee xashiishka noo aruurinay 20 qof maxay u kala qaybsanayeen rag iyo dumar kala qaybsanay 20 qof 14 dumar bay ahaayeen mid gudoomiye ah iyo 4 rag ah oo rag waxaan u isticmaalayna geedaha kale in xashiishka guraan laakiin dumarkan waxaan isticmaalayna xashiishka ururiyaan anaga qudheedu waan kala qayb qaadanayna intii karankayaga maadaama ay dumar yihiin hooyooyin yihiin aan arkaynay danina inay wado aan shaqaalihiina sidaan soo sheegnay shirkadiina aan ka weynay kontract markaan mashruuca bilaabanay dawladda hoosana ay mashquulsanay waan kala qayb qaadanay inaan maxaa la dhahdaa mashruuca la fulino su'aashaan weydiinaa waxa weeye dooxa Hargeysa uu dheer yahay ma hubo laakiin dee dhowr iyo 10 kiiloomitir buu Hargeysa kaga dhex baxaa waanu qashin badan yahay waa meelaha ugu qashinka badan weeye dooxa Hargeysa marka awoodiina dhaqaale iyo awoodiina in tiradaada haydeen ma isku habboon yihiin inaad ka shaqayn lahaydeen dooxa horta dooxa magaalada Hargeysa waa run uu balaaran yahay aadna uu weyn yahay laakiin mid baan sameynay imika sideen ognahay magaalada Hargeysa waxa jira shirkado u qaabilsan qashinka guraan meeshan qashinka dooxa la keeno waxa ka shirkadan horseed la yiraahdo ayaa ka mas'uul ah oo sideedaba qashinka qaada xaga kuma naan doonan laakiin waxa jira meelo dadku maraan sida anagu jaamacadda aanu dhiganayo wadadayadan jaamacadda ayaa nasiib ku seenaysay jaamacadda waxa jira qashin badan oo aan cid ka gurno oo ku soo urura halkaasaan horta xooga saareenay iyo meelahan xagan ka xiga saldhiga oo iyadana qashinka aad ugu badnaan ka urura ugu filan tahay su'aasha kale waxay tahay gawdhadaad adeegsanayseen ma gawdhaad soo kareysatay ma mise shirkad baad lahayd ma shirkadda kontraag waan ka weynay anaga kareysanay yaani dadkan anaga toos u kareysanay $300 aad ku hawlgalayseen idinka dareyskan aad xidhanteen isku wada ma ku jiraan qarashkoodii 500 nagama darsamin anaga wax naga raaca mooyaane wax naga darsamay mashruuca imisa idinka raacay ku dartay anaga wax naga raacay yani markaan waxa kala dheeraadka aan sheegahayn waxaan anagu sheegnay imika mashruuca markaan reportka soo gudbinay ku jiray $37 gaadiidka laakiin inta waxa ka badnay telefoonada aan direynay dadka aan isticmaalaynay gawaadhida gaarka ah kuwa kuma aan darsan qarashad waxaad ugu darweeyeen in qorshaha mashruuci ku Soomaa ay ma santiin waxaan ku noqon lahaa hal su'aal oo wax agab ah ama qalab aad uga tagteen dadkii deegaanka nadiifsan ma jiraan ha way jiraan degmadaas waxaan u geynay caagaga qashka la iskaga guro oo lababa ay u qaadan karaan ama faa'iido ay ugu tahay kow haddii ay qashka gubayaan qashka kala daadanaya qof meel uu ku riday inay ku ridaan isla markaana ay qaadi karaan meel ku gubi karaan haddii ay u imaado gaari yacni qashin ka qaada si ay si fudud ugu saari karaan sidoo kale iyagaaba noo sheegay in maadaama imika baaldiye heleen inuu gudoomiyuhu ku qasbi doono inay baabuurta soo gaaraan ama santiin waqti intee lag bay idinka qaadatay hawsha aad qabanaysay horta 4 saacadood baan la siiyay 4 saacadood waan kala qaybinay habeenkii ilaa 12 habeenimo waxaan ku kuurgalaynay in aan meesha dhabta ah ee aan mashruuca ka fulin karo inaan soo ogaano markaan inta isla qaadanay subaxii 5 subaxnimo laga bilaabo ilaa xoogaa shirkadda waxa naga qabsatay in wanig sheegay carqalad yar waxa soo dhan kuma weydiin imisa idinka qaadatay maalintii waqtiga imisa idinka qaadatay sidii aan yani intii aan qashinka wadnay horta 6 saacadood bay ahayd on gureeday laakiin inta kalena shaqo mashruuca un baan wadnay mar ay carqalad naga hortay macnaha shaqada oo dhan 24 saac leedin siiyay ma waqti baa raacay mise waa ku dhamaysan laakiin waxaan ku taxadaraynay mar walba inaanu hal second naga raacin intii aan ku tala gali karnay 5 galabnimo ku gaarsiinay marka waad ku dhamayseen waqtigii baad ku dhamayseen markana waxa madasha soo galaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa bismillaah anagoo ah bulshakaab group oo adeega bulshada loo dhiibay oo ahaa in goob qashin soo nadiifino 4 saacadoodna la siiyay 4 saacadood si aan u maaj gareyno ama maxaa la yiraahdaa waqtigaan ugu dhameysano waxaanu bilownay inaanu adrasno qorshahayagii aanu ku hawlgali lahayn qorshahayagu wuxuu qaabaysnaa qaybo kala duwan ama sidoo kala sareeyeen qaybteeda koobaad waxay ahayd sidaan ku soo dooran lahayn meeshaan qashinka ka nadiifinayno aanu marnay 7 goobood 7 goobood 3 goobood aan ka dooranay aanu nadiifino 3 gooboodna waxaan ku dooranay ay ahaayeen inaanay meesha shirkadi soo gaarin inuu qashinka ku badan yahay isla mar ahaantaasina aanu qiimeynteedii ku ogaanay inay jiraan goobo qashinka laga qaado laakiin aanay lahayn qashinka waxay ku sii kaydiyaan ama ay ku sugaan wiiga gaadhiga uu soo marayo sidoo kale iyadana waxaanu isla eegnay waxaan uga baahanahay dawladda oo aanu go'aansanay inaanay dawladda la'aanteeda waxba aanay noo soconahaynin oo ah inaanu dawladdii tagno ogolaansho ka soo qaadano si ay waxayagii sharci u noqdaan amni darrana aanay noogu dhicin isla mar ahaantaasina caqabado fara badan kadib waxaanu isticmaalnay xidhiidhada aan anagu aanu lahayn iyo si aanu u fududayn kari lahayn hawsha
dabadeetana iyadoo maalintaa waqtigu nagu adkaa ama jaam lagu jiray xafiis keliyaato dowladda hoose furan aanu jirin oo dadku shaqo ku wada jirana ma heeganay ahaayeen isla mar ahaantaasina markii aan dowladdii hoose tagnay naloo sheegay in agaasimihii iyo dowladdii oo dhamme ay ku maqantay kaambeynka kumanaan sii sugin xafiisadii ama maanaan sii fadhiisanine waxaanu isku daynay inaanu kaambeynka laftarkiisa aanu kasoo dhex helno oo aanu soo helnay agaasimihii baanu soo helnay maadaama aanu xafiis jirin iyo warqad laysku saxiixayo maalin shaqa ay ahayd oo shaqa lagu jiray wuxuuna siiyey oral iyo inaanu maxaa la yidhaahday aanu shaqadii sidaa ku fulino kadibna wuxuu nagu xidhay shirkadihii la shaqaynaya ama maxaa la yidhahday marka horeba ogolaanshaha aanu u doonaynay waxaanu maxaa la yidhahday nagu xidhay markuu nagu xidhayna shaqadaydii sidaas baanu ku galnay isla shirkadihii baanu la xidhiidhnay shaqadiina saasay noogu fududaatay meelahaan maxaa la yidhahday qashin ka guraynana waxaanu ku dooranay kriteria ah in maxaa la yidhahday waxaanu qabanayna markasta sustainable ahaato hadday tahay qalabkaanu bixinayno hadday tahay waxaanu qabanayno sustainable waxay u yihiin qalabkaanu bixinayna inay ahaayeen qalab raandhiis leh ama aan dalooshamaynin ama aan jeexmaynin oo bir ku shaqaynayay bir ahaa isla mar ahaantaasina inaanu goobo aanu kusoo xidhnay gawaadhi aan soo gaari jirin aanu gawaadhidii soo gaarsiinay isla mar ahaantaasina waxaa kaloo sustainable isaguna ahaa sidoo kale waxaa sustainable isaguna ahaa inaanu ogolaansho ka soo qaadanay guddidii xaafadaasi oo maxaa la yidhahday agabkaanu geynay aanan ka warwarahaynin inay maxaa la yidhahday wax noqdaan ama laxado ama guddi qaadato si kaloo baahaysa ay u baxaan mahadsantiin imisa meelood baa tiraaheen baanu soo nadiifinay 7 goobood baanu tagnay markaanu qiimeynana 3 goobood baan isla qaadanay marka 3 toddobaad ka doorateen ha agabka aad geyseen imisu ahaa waxay haayeen 5 foosto lacagtii leydin afar foosto yes lacagtii leydin dhiibay ma wada kharash garayseen mise qaar baa soo hadhay mise waxba idin raacay anagu horta waxba ma raacino sida etigiskaygu ayna amrayaan oo ah inaanan waxba ku darin oo anagu service unaanu fulino marka waxaan maxaa la yidhahdaa isku filaysiinay weliba $5 baa soo hadhay saa magacyadood meeluhu ku celi barakaca cagaaro foostan geynay ayax tirina qashinkan oo ka ururinay 2 foostan oo dhignay sayladana foostan geynay sababtoo ah gaariyaasha qashinka oo yimaadaan laakiin meel ay isaga guraan baan haysan iyo qurac dheer digaalawani kuwaas observation baan soo sameynay laakiin kama soo ururin say u kala qashin badan yihiin baan u kala xulinaynay meelaha okay su'aashu waxay tahay dadkii community-ga ahaa wax idin kala shaqeeyay ma jiraan oo aydo markaan ka shaqaynay ayax tiri guddigii xaafadda baan la shaqaynaysay diyaarna u ahayn nala shaqeeyaan gamcoogana nagala guriyay okay waxaad noo sheegteen inay dowladda hoose ka bilowdeen si ogolaansho ay aad u soo qaadataan marka permission oral aad soo qaadateen oo waxa la yidhi hawsha wada marka ma idaan ka baqanahayn in goordhow haddaad hawshan aad qabataan cid ay idinku carqaladayso ay tahay ma idin dirtay hawshan horta waxaanu qabanaynay social service buu ahaayo kamaanaan qaban inay bulshadana carqaladayso ama bulshada ay diido waayo wax iyaga dan u ahaabay ahaayeen isla mar ahaantaasna annaguna aanu ku qancinay inay maxaa la yidhahday waxaan ay dhibaato ku hayso waxa keliyaatee mushkiladu ahayd ama aan u qaadanayna permissionka waxay ahayd inay maxaa la yidhahday shirkad kasta ay ku qoran tahay maxaa la yidhahday degmo isla mar ahaantaasina degmada wixii iyaga ka baxsan aanay ka shaqayn karin marka taas laftarkeedaan usoo qaadanaynay maxaa la yidhahday permissionka may ahayn wax kaloona ka baqa qabnay gabadhada idiin shaqaynaysa misay haayeen waxay haayeen mid kastaba labay haayeen marka makiraad ka bixiseen gawaarida kale laga bixi laakiin shidaalka iyo dadka ka shaqaynayaan ka bixin iyo shaqaalahana lacagta waa idinkaa siinayeen okay sideed ugu qanciseen gawaarida inaan laydinka karaynin hartu xeer baa u yaala dadkan bulshada marka dawladda hoose iyo dadkan shirkadaha qashinka adigu gaariga kaama karaynasto dawladda iyo wax kharashkuga qabta badanka 20% marka waa marka ugu horeysa waxaad bixinaysaa dadkan kula socday dadka qashinka ku guray ee shidaalka gawaarida shirkadda ku siinaysa kugu caawinaysa sidoo kale waxaanu ku qancinaynay waxaan inay shaqadoodu tahay oo annaga waxna dul saaranayna shaqadoodii aanu fududaynayno marka qofka marka lagu yiraahdo waxaan waa shaqadaadii laakiin waan fududaynayaa wuxuu dareemayaa habrasho marka sidaa darteed baan caqabadahaana uga feejignaan in anagu kos ku bixinin ee koskaan u adeegsanayno gawaadhida aan wax kale ku bixin maatantiin waxaad sheegteen inaad 3 goobood aad ka shaqayseen waqtigaad haysateena 24 saac oo kaliya ayay ahayd qofku wuu odhan karaa intuu meel 2 tallaabo aba 2 tiro qashin ka qaado odhan karaa goob baan ka shaqeeyay marka seen uga dhaadhicinaysaan dhul wanaagsan oo qashin badan yaalla inaad ku nadiifiseen muddaduna ay kaliya ahayd 24 saacadood oo 3 goobood waliba doorateen
horta wax kasta waxaan markhaati lahayna naga reeban bay soomaalidu tiraahdaay wax kasta documentary film baa lagu hayaa before and after idinkuna inaad soo daawateen baa rajinaya ama aad daawan doonta marka taas baa caddayn noogu filan waxaan odhanayno ma aha waayo su-aashaada ugu dambaysa hadalkiina waxaan kala soo dhex baxay inaad tidhahdeen dowladda hoose campaign ama olole ayay ku jirtay waxaan isweydiinayaa haddii ay olole nadaafadeed ahayd armay shaqadiini wax badan idiin qabatay muxuu ahaa talo ololahaas horta ololuhu waxay ahaayeen suuqa weyn bay ka qabanayeen nadaafad iyo inay maxaanku idhaahdo meelo baabi'iyaanba way ahayd sidoo kale waxay dowladda hoose noo sheegtay shirkadii qashinka markaan la hadalay inuu gaadhi kastoo meel ku qoran yahay oona sida loo helay adag tahay sidoo kale aynay gamaradna ogolay in laga tuubo markaa sababtaasay ahayd sababtaan agaasimaha ugu soo raadinaynay inuu ogolaansho noo siiyo inta gamarada laga tuubo idinku waxaad tihiin qoladiina microfonka haysaa bulshakaab b baa tihiin waa Beder University su-aashan idin weydiinaya waxa weeye hawl baad gasheen dee hawshuna hawl ballaaran bay ahayd oo caqabadaheeda leh maxaad isleedihiin oo shaqadii aad qabateen khuseeya oo aad isleedihiin waad kaga badin kartaan gruubkan kale aad tirtamayeen oo shaqadii aad soo qabateen khuseeya bismillaah waxaan isleeyahay waad kaga guuleysan kartaana hawshii aan qabanay ku saabsan horta xogta faraha badan aan aruurinay isku danay 12 habeenimo inaanan hooyan anagoo xog fiican helna mooyaane talabaad labada goobood aanu dooranay oo isleenahay meel ka muhiimsan mabay jirin markaan anagu wareegayni labadaas qodob baan isleeyahay waad ku guuleysan kartaa maxaa aad isleedihiin haddii laydinka badiyo oo shaqadii khuseeya oo aad ku hooseyseen oo isleedihiin arrintaasaad ku dhacdeen haddaan isnidhaano waxyaabaha laydinka guuleysan karo oo kala sheega waxaan isleeyahay annaga horta sidii ugu fiicneed baad wax u qabateen oo intii aan dadaali karayna waxaan la hadhnay ma jirtee insha allah ilaahay ma guul ka rajaynaa marnaba guuldarro ma rajaynayna waxaad isleedihiin waa laydinka guuleysan karaa ma jirto marka miya ma garanayno okay waa mahadsantihiin inta in lagiga bulshakaab hargeysa team hargeysa university ayraha marka hore horta waxaan ku guuleysan karnaa marka koobaad inaanu horta aani guuldara jirin oo markasta shaqadeydii aanu qabanay haddana social worker nahay bulshadaydiina aanu shaqaynay taasi marnaba aani guuldaro ahayn laakiin tartanka waxaan isleenahay waad ku guuleysan kartaa waxa weeyaan horta shaqadaanu qabanay inay tahay mid sustainable oo bulshada u joogaysa hadday tahay agabkaanu u dhignay oo aan ka dalooshamayn waxba ka noqonayno weligood saa ugu oolaya sidoo kale amnigooda iyo aanu ka shaqaynay oo maxaa la dhahdaa aanay cidina qaadan karin waxna aan lagu samayn karno guddidii xaafadda aanu kasoo saxiixanay ta kale waxa weeyaan goobahaanu ka shaqaynay oo xaafado u baahnaa oo dooxo kale haddaanu ka shaqaynay waxay noqon lahayd inaan imika nadiifino dabeedna roob yimaado qashinkii noqdo inaan xaafado u baahnaa iyagana aan ka shaqaynay meeshooda ha gelin taada ka jawaab wadooxay ka shaqeynaa I don't know inaad doox ka shaqeeyaan ba laakiin sustainable kan ka hadlaya sidoo kale inaan maxaa la yidhahdaa ku xidhnay shirkad maxaa la yidhahdaa ka qaadaysa labadii wiigba maalin labada wiig xaafada caadiga wiigiba maalin baa laga qaaday laakiin waxay noogu sababeeyeen inay meeshaas xoog u fog tahay oo aanay maalin laga qaadi karin marka heshiiska anaguna waxaan kula soo galnay labadaa cisho in laga wiigi laba maalin in laga qaado sidoo kale waxaa kaloo guul weyn ah iyaduna inaan 24 hourskii loogu talagalay oo guddida iyo maxaa la yidhahdaa ee ogtahay jaamacadduna aanu ku samaynay assessmentkeyguna uu ballaadhna mahadsantihiin sidoo kale intaas oo dhan tahay maxaad isleedihiin haddii laydinka guuleysto maxaa laydinkaga guuleysan karaa waxaana lagaga guuleysan karaa ama aana lagaga guuleysan karaa waxaa la yidhaha 90% waa work 10%na waa lucky markaan 90%gii shaqada haddaanu qabanno waliba sida loogu talagalay aanu qabanay 10%gii lucky gaaban baa saadho waxaan isleeyahay waa idinka dhan tahay hadda guddiga garsoorka barnaamijka ayaa ku dhawaaqaysa cidda laga badiyey islamarkaasina tartanka ka hadhay bal aynu fiirino waxaan idiin sheegaynaa bismillah waxaan idiin sheegaynaa haddaba natiijadii baan idiin sheegaynaa caawa tartanka uu sponsor gareynayey Premier Bank labadii tiim ee u tartamayey labadiinuba laba magacoo bulshakaaba baad wadateen qolana waxay ka socotay jaamacadda Hargeysa qolana waxay ka socotay jaamacadda Beder waana la wada guuleystay oo shaqo qaran oo ummadda anfacaysa waa la soo wada qabtay laakiin tartan baa jiray oo kulli ciidun baa safka hore gelaysa marka caawa tartankan qolada hadhay ee ka hadhay tartanka waa bulshakaab oo ka socotay Beder marka hambaliyeeya saaxiibadiin groupkiina kale qabyadu noloshay ka qayb tahayo waa
waryaahe waryaa markaad qardhistaba qolbaa madhani qabyadu noloshee